diblomaasi media ayaa daawanaysaan soo dhawaada akhbaraadkii ugu dambeeyay qaybtan waxaan idinkula wadaagi doonaa wararka dunida muslimka waa habeen ay soo galayso Jimco 4 bisha 12 2025 khilaafka u dhaxeeya Israa'iil iyo Turkiga wuxuu u muuqanayaa inuu weeqayo qorshe la doonayay in lagu dhiso ciidan caalami ah khilaafkaas muddo ayuu taagnaa Israa'iil wixii ka soo horjeeda aragtida ah in ciidan dawladda Turkiga ka socda la geeyo gudaha magaalada Gaza madaxweynaha dawladda Mareykanka waxa uu saaxiib dhow u leeyahay Erdogan sidoo kaleetana Mareykanka wuxuu ilaaliyaa Israa'iil sidee labaduba uu doonaya inuu isugu hayo Erdogan wuxuu Trump u fududeeyay waxyaabo badan oo dhanka gobolka ah isagoo heshiise badan qalinka ku duugay mowqifkii Israa'iil ay ka dhanka ah ka qaybgalka Turkiga wuxuu keenayaa marka in sida dalalka Azerbaijan iyo Pakistan ay dib ugu soo laabtaan ballanqaadyadii hore ay u muujiyeen taas oo qayb ka noqon karta qorshaha dawladda Mareykanka laakiin dhanka kale ay khubaradu ay leeyihiin inay halis gelin karto qorshaha madaxweyne Trump dawladda Mareykanka waxay ku dadaalaysaa sidii loo dhisi lahaa ciidan caalami ah oo qayb ka noqda xasilinta amniga guud ahaan magaalada Gaza aragtidan waxaa taageeray dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Qatar, Masar, Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, Indonesia, Pakistan iyo Urdun si kastaba ila xoogaala waxay sheegayaan in ilaa iminka wax horumar ah aan laga gaarin qorshaha ciidanka loogu dirayo magaalada Gaza mas'uuliyiin dawladda Turkiga ka tirsan ayaa si joogto ah waxay u cadeeyeen in Ankara ay diyaar u tahay inay ciidan u dirto magaalada Gaza laakiin Israa'iil si cad ay arrinkaasi uga soo horjeeda Mareykanka ciidanka halkaasi loo diray waxa uu doonayaa in lagu fuliyo qorshayaashiisa iyo danaha Israa'iil khilaafka Turkiga iyo Israa'iil wuxuu u muuqanayaa in meel sare uu gaaray Turkiga wuxuu hore u sheegay inuu diyaar u yahay 2,000 oo askari iyo dheeraad inuu u diro magaalada Gaza Israa'iilna si cad ayay u diiday joogitaanka askarta Turkiga ee magaalada tanina waxay keentay in dalal kale ay dib uga gurtaan oo ay ka cagajiidaan qorshaha iyadoo la isweydiinayo in shaqada rasmiga ah ay ciidankaasi xasilinta ay qabanayaan Sacuudiga, Pakistan, Azerbaijan iyo Indonesia waxay u muuqanayaan inay dib u laabteen inkasta oo meelo badan ay Turkiga ku aragti ka yihiin Imaaraadka Carabta dhankiisa gabi ahaan wuxuu diiday inuu ka qayb noqdo qorshahan oo waxa ay yiraahdeen qaab dhismeed cad ma jiro mana jirto sabab aan xitaa dhaqaalaheena ugu bixino ciidanka warbixino kale waxay sheegayaan in Imaaraadka uu cabsi ka qabo saameynta Turkiga iyo Qatar iyo arinta magaalada Gaza maadaama ay doonayaan in iyagu ay kaga saameyn bataan gaar ahaanna kor u qaadida kooxo ay u aaminsan yihiin inay yihiin ama xiriir ay la leeyihiin ikhwaanul muslimiin iyo xoogagga iska caabinta Hamas Turkigana waxa uu filayaa in Mareykanka cadaadis uu saaro Netanyahu Washington waxay doonaysaa Turkiga inuu qayb ka noqdo howlgalka nabad ilaalinta maadaama Turkiga loo aqoonsan yahay inuu yahay dalkii ka shaqeeyay isku duubrid ka dhammaan howlihii heshiiska lagu gaaray magaalada Sharm el-Sheikh laakiin arrimo siyaasadeed ayaa carqaladeynaya sida Ankara oo soo saartay amar soo qabasho oo ka dhan ah ra'iisul wasaare Netanyahu iyo carada Israa'iil ee ka dhalatay arrinkan qorshaha Mareykankana waxa uu yahay in ugu yaraan 3 guuto oo ka kooban 15,000 ilaa 20,000 oo askari loo diro magaalada Gaza waxaana la qorsheenayaa inay howlgalaan horaanta sanadka 2026 ama xitaa bilowga January sanadka 2026 xiriirka Turkiga iyo Israa'iil waa uu sii xumaaday tan iyo heshiisyadii ugu dambeeyay ee magaalada Gaza sababahuna waxa kamid ah Turkigu wuxuu Israa'iil ka dacweeyay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ Erdogan wuxuu dagaalka magaalada Gaza u aqoonsaday xasuuq ka dhan dadka shacabka iyo isirsifayn xanibaadihii ganacsiga ee Israa'iil iyo Turkiga u dhaxeeyay iyo khilaaf la xiriira arinta dalka Suuriya iyo difaaca dhanka hawada iyo saldhigyada Turkiga uu doonayo inuu ka sameeyo gudaha dalka Suuriya oo Israa'iil gabi ahaanba ay ka hortimid dhanka kale dawladda Qatar ayaa waxay ka hadashay qalalaasii ugu dambeeyay magaalada Gaza afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Qatar Majid al-Ansari ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in dadaalada dhexdhexaadinta ee ku saabsan heshiiska magaalada Gaza inay si wanaagsan u socdaan isla markaana waxa uu sheegay isagoo wariyaasha kula hadlayay magaalada Doha inay xaqiijiyeen in dawladda Qatar ay si joogto ah u kormeeri doonto dhaqangelinta heshiiska xabajoojinta iyo inay ka shaqeeyaan in gabi ahaan xabajoojinta aanay burburin sidoo kale waxa uu sheegay hadda in xoog la saari doono sidii xabajoojinta hadda jirta loogu bedeli lahaa wado loo maro u gudbinta ama u gudubka wajiga labaad ee heshiiska magaalada Gaza iyo magaalada Sharm el-Sheikh qodobadii lagu kala seexday waxa intaasi uu ku daray in jibin kasta oo lagu sameeyo xabajoojinta ay qatar weyn ku tahay sii jiritaanka isla markaana ay weeqi doonto wax ku oolnimada
nabadgelyada magaalada. Si kastaba ha noqotee wuxuu xusay in xabad joojinta ay tahay midda keliya ee lagu gaari karayo joojinta dagaalka, sidoo kaleetana loogu gudbi karayo marxaladaha xiga. Israa'iil ayaa tan iyo markii Sharm el-Sheikh heshiiska lagu gaaray waxa ay dhowr jeer ku xadgudubtay heshiiskii xabad joojinta. adiguna fikradaada qaybta hoose inugula wadaag. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. marka la eego soo jeedinta xukuumadda Washington iyo sidoo kale qorshaha dowladaha Sacuudiga iyo Masar, waxaa la doonayaa dagaalka dalka Suudaan in xal loo helo. telefishinka Al Arabiya ayaa baahiyey in Mareykanka uu soo jeediyey qorshe lagu joojin karayo dagaalka dalka Suudaan, kaas oo ka kooban 3 marxaladood oo kala duwan: mid military, mid bini'aadanimo iyo mid siyaasadeed. qorshaha waxa uu farayaa marka in marka hore horgelinta bini'aadanimo la damaanad qaado, gargaarkana si joogto ah loo gaarsiiyo dadka shacabka ah, adeegyadana loo furo guud ahaan dalkaas Suudaan, isla mar ahaantaana la helo guddi caalami ah oo kormeera xabad joojinta. waxaa kaloo uu dhigayaa in la dhiso habab kormeer oo lagu kormeerayo marinada bini'aadanimada, in la ilaaliyo dhammaan marxaladaha kala duwan ee gargaarka lagu gaarsiin karayo dadka shacabka. waxay isweydiin mudan marka midda military ama qorshaha militariga oo ah qorshaha labaad muxuu noqon karayaa? ma dagaalka ayaa lagu doonayaa in xal rasmi ah looga gaaro, ama waxaa laga shaqeynayaa sidii dhinacyadan ay isku fahmi lahaayeen? waxaa sidoo kale jira qorsho dhanka diblomaasiyadda ah oo qayb ka noqonaya xal u helidda dagaalka ka soconaya gudaha dalkaasi Suudaan. waa hagaag saaxiibayaal, waan eegi doonaa iyadana waxaa halkaasi kasoo kordhaya Suudaan xaalkeeda. ilaa iyo hadda si rasmi ah isuguma daba dhacno, hase ahaatee la soco qaybaha kale. dhanka kale aan usoo laabta Gaza, xoogagga iska caabinta ee Xamaas waxay shaaca ay ka qaadeen in ay wareejiyeen mid ka mid ah meydadkii labada ahaa ee laga sugayey kadib markii ay baaritaano ay sameeyeen hay-adda Bisha Cas. ayaa la sheegay in lagu wareejiyey meydka askarigaasi magaciisa lagu sheegay Ryan Gaviri, waxaana sidoo kale la baadigoobayaa meyd kale oo u muuqanaya inuu yahay kan ugu dambeeya ee ku harsan dhankaasi iyo xoogagga iska caabinta ee Xamaas. dhanka kaleetana guddiga maxaabiista ee Falastiiniyiinta ayaa shaaca ka qaaday in ku dhawaad 21,000 oo xiritaan ay sameeyeen ciidanka Israa'iil tan iyo 2 sano ee la soo dhaafay. warbixin la soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay inay ka shaqeynayeen olole ballaaran oo la doonayay dadka in lagu soo daayo, waana 2 sano ee ugu xirxiritaanka badnaa oo ciidanka Israa'iil ay sameeyeen 10 sano ee la soo dhaafay. 21,000 oo jeer ayaa la sheegay in la xiray dad rayid ah, qaarkood waa la sii daayay, kuwa kaleetana way xiran yihiin. sida hay-adaha u dooda xuquuqda maxaabiista ay sheegaan, ku dhawaad 10,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa ku jira xabsiyada Israa'iil. 49 ka mid ah waxaa la sheegay inay haween yihiin, 450 kaleeto waxaa la sheegay inay caruur yihiin, kumanaan kaleetana waxaa la sheegay xaaladoodu inay liidato, qaarna sharci darro ay ku xiran yihiin, qaarna waxaa la sheegay xitaa in xabsi in la geliyey iyadoo aan wax maxkamad ah la saarin. hagaagi ogolaada saaxiibayaal inaan intaas kusoo afmeero barnaamijkii aad kala socoteen Dulmaasi Media. haddii halkan aad soo gaartay subscribe-ta inuu sharaf nabadi.